السلام عليكم. ما أهن وحفظ إنay ka muuqan weyso da'da markii aad weynaato maxaa yeelay markasta uu sii kordho nambarka ama tirada aad jirto waxaa ka sii muuqanaya jirkaaga oo sii weynaada muuqaal aadan jeclaysan oo aad yeelato iyo tabar yari maanta waxaan si kooban uga hadli doonaa 10 hab oo kuu sahlaya inaad ka fogaato inaad calaamadahaasi gabowga isku aragto oo aad u muuqato mid leh awoodihii 20 jirka iyo muuqii wacnaa balse ugu horeyn haddii ay tahay markii kuugu horeysay channelka muuqaalkan aad ka heshay fadlan like saar naguna soo biir oo subscribe dheh asxaabtana u gudbi mahadsanid aan bilaabo video qodobka koowaad noqo mid mar walba ku fikira wanaag macnaha be positive shucuurta ama dareenkaaga wanaagsan waxa muhiim u yahay caafimaadkaaga guud haddii aad naftaada ku booriso inaad ku tiirsanaato fikradaha wanaagsan haba kugu adkaato maalmaha hore laakiin waa bedeli kartaa dabeecaddaada iyo fikirkaaga inaad u weeciso dhanka wanaagga waxaana markaasi noqonaysaa mid deggan oo u wanaagsan naftiisa iyo dadka ku gadaama noloshiisaba markaas ayaad fahmaysaa in qof kasta uu leeyahay nolol u gooniya iyo caqabad aad wajahayso isla markaa ogaatid ayaa xal ka gaaraysaa waxaadna helaysaa fiyoobi muuqaal ahaaneed iyo mid maskax ahaaneed sidaas ayaadna ku dareemayn inaad da' noqotay maxaa yeelay markaad muuqaal ahaan iyo maskax ahaan u jiran tahay markaas ayay da'du kugu soo degdegtaa qodobka labaad ka fogow qorraxda saa'idka ah marka aan leenahay ka fogow qorraxda saa'idka ah ma ahan in qorraxda oo dhan aad iska ilaaliso balse waa marso kareemada ka difaaca qofka in falaaraha qorraxda ay dhaawacaan waxayna kareemadaasi samaynayaan in ay dib u habeyn ku sameeyaan wixii maqaar dhintay oo keeni lahaa qofka inuu laalaabyo maqaarka ah yeesho iyo finan ka muuqda qofka markii uu maqaarkiisa cad yahay qodobka saddexaad qiimayn ku samee xiriirada iyo dadka noloshaada ku jira xiriirada waa waxa mararka qaar keena qofka inuu stress noqdo sidaas daraaddeed inaad duq noqoto waxaa keeni kara dadka hareerahaaga ah ee aan wanaagsanayn dhinac kasta ama jacayl ama hawlo kale sidaa daraaddeed qaado waqti oo ku kala xul dadka agtaada ah ee kuu dhadhow waxaa laga yaabaa inay jiraan dad adiga dhib un kugu haya oo aan dheef kuu wadin haddii aad aragtid dad adiga kaa soo horjeeda oo aan wanaag kaaga soo horjeedin iska fogay kuwaas maxaa yeelay noloshu waa waqti yar oo ha ku khasaarinin dad aan noloshaada kor u qaadayn qodobka afaraad cun cunnooyinka aad caafimaadka ka helaysid ama caafimaadka qaba sida aan qodobka koowaad ku sheegay caafimaadku waxa uu kaa dhigaa mid yar inaad caafimaadkaas qabtidna waxaa sabab u ah waxa aad cunto sidoo kale qodobkan waxa uu noo samaynayaa mahmaa cunto oo ah waxaa tahay waxa aad cunto oo micnaheedu yahay haddaad cunto raashin ama qudaar aan nadiif ahayn waxaa noqonaya mid xanuunsan haddaad xanuunsan tahayna waxaa hallaabaya koritaankaaga iyo jirkaaga muuqaalkiisa sidaa daraaddeed cunto jirkaaga nafaqo u ah maxaa yeelay waxay kaa dhigaysaa qof maskax ahaan wanaagsan dareen fiican leh oo aan buuq lahayn iyo inay ka hortagto cudurrada kugu dhici lahaa markaas ayaadna u muuqanaysaa qof da'yar ugu dambayn isu keen cuntooyinka aad jeceshahay kana saar wax kastoo aan nafaqo kuu lahayn kuna beddel cuntooyin ay ku jiraan nafaqooyin iyo fitamiinno qodobka shanaad soco maalin kasta inkastoo maalmaha qaar ay adag tahay inaad socoto xaaladaha jira awgood waa dabeecad ama dhaqan aad beddeli karto noloshaada maxaa yeelay hal mar oo horey u dhaqaaqdo ayaa noloshaada oo dhan beddeli kara haddii aad maalintii 15 ilaa 40 daqiiqo aad ku soo socotid qorraxda waxaa wanaagsanaanaya wareegga dhiiggaaga dareemahaaga farxadda iyo wanaagga waxaana yaraanaya miisaankaaga iyo ugu dambayn waxaa siyaadaya tarankaaga sidaa daraaddeed socodku waxa uu muhiim u yahay noloshaada dhinac kaste yaraan duq
iyo caafimaadba. Qodobka 6 ka shaqaysii maskaxdaada si joogto ah. Qodobkan waxa uu kuu caddaynayaa in murqahaaga iyo maskaxdaada aad ka shaqaysiiso si aad u hesho caafimaad iyo jir dhisan oo wanaagsan. Markaas ayaad u muuqanaysaa qof yar oo dhalinyaro ah. Haddii kale oo aadan labadaasi isticmaalin, jirkaagu wuu isku imaanayaa, kadibna waad duqoobaysaa, maskaxdaadana waxay noqonaysaa mid aan shaqayn oo xikmad lahayn. Si aad uga shaqaysiiso maskaxdaada, akhri buugta ama quraanka iyo wax kasta oo muhiim ku ah oo wax kuu kordhinaya. Muruq ahaanna samee jimicsi iyo socod si jirkaaga uu u noqdo mid dhalinyaro ah. Ugu dambayn, qodobkan markaa intaad isku heshid maskax iyo muruq wanaagsan, waxaad noqonaysaa qof hal abuur iyo haybad u saaxiiba. Qodobka 7 noqo bulshaawi mar walba. Qodobkan waxa uu ka hadlayaa inaad noqotid qof bulshada ka dhex muuqda ama fikir ku dhex leh, kuna dhex jira dadkiisa halkii aad ka ahaan lahayd qof bulshada gaarka ah. Maxaa yeelay taasi waxay dilaysaa fikirkaaga iyo muuqaalkaaga. Waxay kaloo kuu keenaysaa in cudurrada maskaxda ku dhaca ay kugu dhacaan, sida ilowshaha waxa dhow iyo wixii hore, maadaama maskaxdaada aysan haysan dad wax ku soo kordhiya. Hadafka qodobkan waa samayso wax noloshaada raaxo geliya kuna soo dhoweeya dadka hareerahaaga ah. Qodobka 8 seexo hurdo kugu filan. Waxaa macquul ah in aadan hayn firaaqo mararka qaar si aad u seexato, laakiin sida wanaagsan waa inaad habeenkii heshaa 7 ilaa 8 saacadood oo hurdo ah. Maxaa yeelay markaas ayaa dib loo dhisaa wixii unugyo ahaa ee markaasi dhintay jirkaaga iyo maskaxdaada intaa soo jeeday. Marka haddii ay taasi dhicin, waxaa dhacaysa in qofka uu buuq miiran iyo xanuun uu ka bixi waayo, kuwaas oo ugu dambayn u keena cimri degdeg. Qodobka 9 yaree buuqaaga ama stresska. Qofka inuu isku buuqo waa midda ugu badan ee keenta qofka inuu da' noqdo. Qofka inuu stress badan ku jiro waqti dheer waxay keenaysaa caafimaad darro sida niyad jabka, walwalka iyo tabaryarida oo ah cudurro aan la fahmayn dhanka waddankeena Soomaaliya. Cudurradan dhammaantooda muuqaalkaaga ayay waxyeelaan. Sidaa awgeed, isku day inaad qof deggan noqoto, fikirkaaga wanaag uu noqdo, niyadda saafi ay ku ahaato si aad isku furfurtid wax kasta oo ku wanaagsanna isla markaasi samee. Qodobka 10 ku fikir mustaqbal wanaagsan kana miro dhali. Mararka qaar way adag tahay in nolosha aad ku jirto inay ku meel gaar tahay inaad xasuusatid. Tusaale ahaan, haddii shaqada aad ka shaqaysid aad nacayid, ma ahan in weliga aad joogaysid shaqo la'aan, balse waa inaad sugtaa intaa mid ka wanaagsan aad helaysid. Ama haddii aad ku guuldareysatay xiriir, kaama dhigaysa inaad qof kale aadan helayn, laakiin waxaa jira qof kale oo kuu wanaagsan oo aad gaarayso haddii aad hore u socotid. Wax way kugu dhacayaan, balse ka gilgilo oo hore uga soco. Nolosha iyo mustaqbalka waa kuwo iftiin ah ee adiga ka dhigo kuwo qurux badan. Hana fiirin sida aad tahay iyo meesha aad joogto. Samee isbeddeladan si aad u aragto mustaqbal wanaagsan. Una samee si isdaba jooga. Maalin baad arkaysaa wixii dhan oo isbeddelay. Muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay daawade. Haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan like saar, subscribe dheh channelka oo nagu soo biir. Asxaabtana u gudbi si ay wax uga faa'iidaan. Muuqaalkeena inoo xiga insha Allah.